مالي أهين طلياني أكتر فرتون رالله أنا ما أعرف ريل لده فرتون كوسو والله الرضا يفرتون واسلاماشي صوبته سلاماشيا قبل ما تريه جيس ولا على باك يا أبو أساك دكتور كبربا ولا الكيد ناس كتابتي مركز واحد تري ناس كولا الكيد تابت حبوا واسدان كدكتور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قد جين داود يال ملك استاد جوكتان نبتقلي بين حريسي سومين دقار كي تجود انتم بجود كنا هذا نسود وهذا هل كان قد وانا سنوا مقال بهيا فقان قار كي لا في أنا جوحنا يجري ياسين حاجي دنك جوحنا فدي ملك أحمد عبد الرحمن أحمد يرى أحمد عرو لكن واحد فدي عبد الشكر محمد شامع ودناها دقل بكتر صديق كاميرا دوي وحتى لما ننو وين وإنجنير عبد الحكيم البوريو عدي عبد الرحمن عدي عبد الرحمن عدي عبد الرحمن قدي waxaan la saaxiibay soo dhawaad meesha joogtaan waxaan leenahay nabadgelyo biyo mar kale naxariisiisuba inta wajud kina aade barnaamijku waa barnaamijka qof iyo sheeko ya inoo bilaabaya bahashaasna dhagay ka saarayna waa alaabtii coronavirus ya waa nigiska afka covid iyo lambarkii covid 19 19 kan garan waay covid waaba covid ta waxa anu covid ma garan waay covid ba waxa la dhahay ninkii helay cudurka anu covid waxaan garanaya xisaabtaan garanaya maxay 2019 soo bilowday covid waxa axmed covid haye covid waxa anu 2019 waxaya covid min kan kale ba qorani magaciisa in magaciisa miya way ila agta koola koonat oo qofac oo qofac nin aan baday xanuunada intooda badan dhakhtarkii helay baa lagu magac ma tan waxay ugu magac dareen waa qofac 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 anaga dhakhaatiirta mid baa qofacay moogtay bulshada dhex fadhiya fara badan dadka wasaa eegmayso aniga ma aniga ma yaa qofacayna leesma weydiin marka leesma weydiin waa ka kacay barnaamijkan ku soo noqono intaas qoftan hayno noqotay hordhac waxaan rabaa sheekada ugu horeysa axmedow inoo soo qabo adoo weli soo ururnaya nihow sheekooyinku waaba sida iigu sii yaryaraanayo dee moogtahay mar haddii cimrigaaguna yar yahay sheekooyinkuna waa iska yaryar yihiin waa idin salaamayaa anna sidii haddii cimrigiisu yar yahay iga raba yahay covid baan soo hadal qaadnay masiibooyin badan baa jira daawadayaal idinka iyo qaraabadiina saaxiibadiina kulli dariskiina allaha idinka hayo annagana allaha naga hayo sheeko badan ma hayo waxaa laakiin hadda igu soo dhacaysay ma garanaysaa sheekadaas gobolkay ka dhacday Soomaaliya horta ka dhacday gobolkay ka dhacday laakiin dadku har raadsadeen sax uma sheegin inagu waxa weeye dadku hadda waxay marayaan maxaa deegaanadana loo taabtay ma ogtahay waxaan meel lagu taaban maayo waa dhacdo laga sheekeynay sax nin baa hadda ka hor culimaa soo baxday dadkay wacdinayeen daaciyaal bay ahayd dee diinta aqoonteeda waa inaga soo raagtay sax markayna soo gaartay ma dhowa taariikh ahaan waa iyadoo degaysa ayayna soo gaartay laakiin aqoontaa soo raagtay in la barto Soomaalidu waxyaabaha ay jeceshahay geela ka mid ah ka mid ah kuwa jecel anu beelna sheegi maayo deegaanna sheegi maayo qofba soo u qaata asay u taala sax malihiina adinka waxaad malaysaan adinka ka mas'uul haddaad la heshaan haddaad la weydaan sax waa tii geela la jeclaa waa tii la isku leyn jiray waa tii dawdayaasha waxaan ka codsanaynaa hadday garanayaan meesha ka dhacday hadday nala wadaagaan taasoo mid kale iyagu nala wadaaga idinku waa Soomaaliya ayagan joogayna maxaad ka rabtaa waaya adaaba ka garan doona waliba maxaa adeerkay laga rabaa iyo qarraac baa iman doonta geela aad baa loo jecel yahay waa la isku leyn jiray sax mararka qaar marka taariikhda iyo dhacdooyinka dib u raacdo waxayba u ekayd ba inuu maaragtay qofkii gacanta u galo ilaahu mu cidi iska lahayd oo dhan soo laayo wax asagu leeyahay xalaala waxa lagu ogaadana waxa kamid ah hadda markay ku heesayaan xalaal iyo xoog hadduu xero galo midna kuma xumo oo ku yiraahdo ala kulli xaal zaka warkeed la bixiyo oo geel ihma jirin ilaa hadda wayarta deegaano badan oo waxa la helayaa dad bixiya zakaatu maalka waxay ka bixiyaan ariga iyo waxyaabaha kale iyo geel lagama bixiyo dura 200 halaad buu iyuu ka bixinayaa ceesaan leesaga dabayno ceesaanta alla ka lugooynaya sakadana laguma oran geela ka bixin ariga ka bixin sax waxa la yiri marka nin geel badan zakan aan bixin baa loo yimid waxa la yiri inuu sakada bixi culmadii way wacdiyeen way yara dhalaaliyeen inuu lafiisa badbaadiyo dhibaatada uu la kulmi doono hadduu sabixin iyo markuu bixiyay faa'iidada la isu barbardhiga adigu laba habeen hadii la joogeen buu aqbalay geeli baa la soo xareeyay subaxii in la bixiyo lagu heshiiyay waa birgi baa geeli la tiri waxa la yiri waa qaalin lix jira ba kuwa jira qaalin lix jir ah ayuu noqday waajibkii qaalin ina gaaf la yiraahdo gaaf waa midab ka madowga ayuu ka soo jeedaa
ina gaafo 6 jir ah oo aan weligeeda ogadeeda xarig taaban baa la xiray geeliba ooda laga qaaday xarigiiba la dirirtay way booday mar dambe geelo iyo ragga iyo way tarbiyada qaadan ogyihiin sida la sheego markay aragtay inaysan fakanayn oo ay dee wixii caloosheeda ku jirana fatahday bay tiyo af dheeraynaysa afku saa u dheeriyahaad oo dhexdii gudato saynta dhexda ka jijibisay geeli bay sii sharqan raacaysaa asna waa nin markii u horeysay sikada bixinay geeli buu sagootiyey markii geeli uu sagootiyey buu soo noqday markaas wuxuu arkay qaalintii oo waxay carro qaribtay isay u ekaatay iyo boggii dhuubtay waxay caloosheeda ku jiray sii daysay xarigga hadba dhinac ula boodaysa qaalintaasna waa qaalinta sikada hayda la xiray waa sikada hayda sax markaa wuxuu u socdaa culimadii iyo dadkii kale oo dariska ahay akhyaartii oo meel fadhida buu rabaa inuu u tago moogtahay markaasuu qaalintii fiiriyeysaa lexjacladii geela qaybteedii baa istaarantay mar waa ina gaaf way xiran tahay mar nin baa kaxaysanaya mar yacni caro dhan bay ku bantay moogta bilaaw intuu iska jarayba xariggii xataa ka furid muuse ku dayni uu ka gooyey 6 jir jahadii geelu ka aaday garanaysa ninkii xoola ka warqab ahaa og mar bay saa u haaday moogta hay waa la fiiriyey war qaalinta waa aragtay qabta mise odagii baa meeshii ka soo socda war maxaa dhacay sakada maxaa bixisay markaasuu yidhi ina gaaf buu yidhi intay xarig ku bani lahayd anigu aan naarta ku bano bismillah garanaysa lexjacladii baa waxay ka qarisay waajibkii uu gudanayay meesha anigu inta iyadu maanta xariga ku cadibnaa lahayd anigu aan sababta u bixinayo markii horeba looga qaaday maxay ahayd haddaad zakada bixin naartaad gelaysaa lagu cadiyey wixii looga qaaday naartii baa loo sharaxa waxay tahay markii dambena wuu fiiriyo lexjacladii qaalintii ka haysay rafaadka haysta iyo rafaadkii looga sheegay buu midkaan la cuslaa marka wuxuu yidhi ina gaaf intay xarig ku bani lahayd aniga aan naarta ku bano meesha ay ka dhacday iyo cidda ay ka suurowdo iyo laydinkugu tegi maayo waa idinka xaggiina le idinka aad mahadsantihiin waxaad daawanaysaan weli barnaamijka qof iyo sheeko xaggan waxaa fadhiya cabdishukri saa mar raba idin sheega cabdishukri soo dhow waa mahadsantahay sheeko qosol loo khatara laga rabaa way laakiin dhinaca lexjaclada marka lexjaclada haddii la aado aan lexjaclada aadin sax horta nin walba waxa uu haysto waddada axmed inoo bilaabay amar hati sax nin walba waxa uu haysto waa horta lexjaclaystaa kelmadda lexjaclo bal horta maxay tahay macnaheedu sharax dadka u sharax adiga laga rabaa adaa macalinka afka mar hore sheegtay axmed kelmadda lexjaclo waxaa la dhahaa hanti jeclaasho waxa aad haysatay jeclaanshahooda aad ku mitidid aad waxba la jeclaan inayna kaa bixin adigu mooye waaba jecesha aad iyo aad ayada saas ku daray way waa saas ma axmed meel ka hadlay sax xogaa qadarin buu afku leeyahay sax axmed adigu si oo degdegaysa ma u degdegay anu dhexdina fadhiya waa khaldi karaa maadaama dadka qaar aan ka yahay af hadday noqoto dadka qaar ka yaray kula ya dadka marka qaar idinka yaray kula marna idinka yaray waa khaldi karaa kula ma waa saxan yahay hadduu naga yaray meel kale laga yaabo naga yaray wax dhici kara wax dhici kara iyo isku hilba tirsaday gutiris ma baahna bilaa sidii boodhari la ii qabay wad waa dhinaca lexjaclada ari haddaa haysatid oo dhinaca riyaha iyo lo'da iyo beesha leelaje adoo dee geesalayde riyaha iyo geesalayde ka mid tahay baasha waa iska difaaci karaaya ayagoo iska leeyi laba raafle laba raafle inkastoo lo'du laba raafle iyo ku jirta geesalaydana way ku jirtaa shinkan way noqotaa shikina way tahay iyadu waa meelo dhexe laakiin ma sii waaritaan badnaa marka waa dhinacan lexjaclada ayaa aadayna ninba wuxuu degi jiray meel furinta xaggee u taqaaneen goob dagaal sidii hore meel u kala tegay geeduhu baxeen wax aan Soomaali looba sharaxay ma ji wada garanayaan intaas arrinta taqaan Soomaali waxaan loo sharaxay ba furin baa ka jirta ku soo waa loo sharaxaya sida loo sharaxay waa yaqaanaan yaqaana furinta soo dagaal u socdo dhashaa Soomaaligu inuu soo furinta miyiga iyo furinta magaalada isku mid ah kelmadda af qalaad bay ka timid waliba Ingiriis bay ka timid waa front line bay ka timid Soomaalidu sidii bay ku qaadatay waa furin baa leena waa kugu furan tahay waran caaisna waa jirtaa Soomaaliga saad ku furan caais waran gaaxis baa kufur Soomaaliga oo jeeda waa badbadaad waran caaisna kufur bay ka timid waranka caacay meesha laakiin waran gaaxin baa noo caaista sharaxaad raayis ku soco ninba meel furan oo goob dagaal degan waa degan yahay wuxuuna lahaa ari isugu jira ido iyo riyuula waxa lagu yiri wadniyo meesha khatar weeye wiilashana ha isaga malkin adiguna ha ismalkin sax geel mooto yaanu mooto
dhulkaana waa dhul rabgaab ah rabgaabka waa garanaysa arigu furin la soo aaday haye arigu furin la soo aaday anigu rabgaab ma aqaan haddaan been sheegin wallah anoo aqoon ayre rabgaab adaa yaqaan ya adaa yaqaan rabgaabku waa meesha meesha arigu rabgaabka weeye geed gaab dhulka geed gaab okay rabgaab baa leeyahay rabgaab meeshu marka Rabgaab siday baa saa u ahayd oo qoloba maalin uga cararisay oo dhaawac badan la dhigay oo meyd badan meeshaasi dee lagu aasay baa la yiri kada ariga meesha kaga maya ariga lagaa dhacaya ma aha naftaada ha ku halligoobay ariga lama dhaco raggaa la laynaya ragga la laynaya wiilasha kuwa dhacana arkay haye sida hawshiisa loogu waday anigu ariyaha dhaca ma arki jiray ya ma waanu aragnay wad hay sida loogu waday buu maalintii dambe wuxuu yidhi kuwa subaga dhac ma artay subaga Kororso. oday uugii waa laga xaday Jannada naxariista mar Allah. haddii subaga la dhaca ariga waa xatooyo dhac waa kala laba ku soco sheekada waa dhac dad badda xatooyada soo sida sheekooyinkiibaa farihii ka bato ayaga isjiirjiiraya isjiirjiiray marka dulqaata way soo socota hay marka wuxuu yidhi riday intuu ri sheegay intay gaajo ku seexan lahayd inaan meyd ag seexdaa la qaato bismillaahi raxmaan in wiilkayga la dilaa dhaan dee wiilkayga in la dilo waa xagga eeg waa jeclada sida agla qaalisa xilliga ay marayso waa xilli halisa wey marka qof walba waxa uu haysto ama geel ha haysto ninkaanaan rabaa macnaha sax sax inuuna ninkaani geel jacaylka dadka kale uu kala simayaan qof walba waxa uu haysto uu cajiib ku yahay dee adeerkaya lamaagin iyo haddaad la heshaa qori ku yiri boog qori la hadli adhow geel laba la yiri oo geel la odeede keebay ma leedihiin bayaa ku yiri ku soco way iyo imoodin ilaa adeer difaacan iyo meelo kale dad buu ninkaan la hadlayay weli dadkii waxaa laga yadaa lahayn abtiga baa lahayn ama abtiga hadde maya sababtina ma lahayn oli geel mayna lahayn abtina ma lahayn yamle waxaan leenahay kadimaan leenahay kadima riyaa maya geela fadhiyo geel baan leenahay ninkii la yiri wiilashayaan riyahan meeshaa daaqinayso daaqsin buu ugu bogay waa meel colaad looga kala waran durkay gaaxshay weeye waa ku soo wadaa sheekadii marka wuxuu wuxuu yiri intii ridaasi hebla ah gaajo la seexan leed inaa meyd ag seexdaa la qaato rid waxay u taagan tahay riyihii arigi meesha way u taagan rida ugu inta caan arigayga magac waa gorda sharaf gorda sharaf oo kale gorda sharaf bay leeyihiin gorda nimankan sharaf nawla iyo dheeho iyo dheeho dheeho laakiin magac ayaa jira mogta gabdhaha la wadaagan riyo fartuun oo kale iyo fartuunta maana lahayn fartuun mayna inkastoo fartuun ay soomaali ahayn oo talyaani ay ka fartuun raalli ah anu ma arag rid la dhaho fartuun ku soco wallahi rida iyo fartuun waa isla meeshii sababtoo isla meeshiya gabdhihii baad riyihii geysay walle colaad baa yaa ka waa saa ka dhigtaan casha anu arkay siyaad bare janniya naxariis allah siiye madaxweynahayni aan cidi ka dambeyn baa oranaya janniya naxariis allah siiye aamin maca madaxweynaha hadda cidi kama dambeyn ma anigu dee sida dhulkii waxaan hadda eeg ilaade wadada dhisa waa asaga dekada dhisa waa asaga xerada booliska maalinta qofka ay kusoo xiraan waa isaga wax walba waa asaga hees waa heestii hees oo hees calanku waa calank wax walba oo dib joogso xataa fi salaanta waa salaanta sheekada raalli ahaada waan kusoo laabanayaa xogaa baan ka dejiyay nimankaana meel kale ila booday salaantu waa salaantii ninkii uu asagu garaadada u siiyey xidigta kuu saaray baan leenahay ninkan ma taqaan laba xidig ah dowladda xaasiya farmaanto maanta ma joogaa dadku dee shacabku ma jecel yihiin oo ma taageersan yihiin ha dhahaya dee darajooyinka ha janankuu xiray hadda maanta dhan hadduu igu taxayo cid i rabta bale alla kaamiyaa taqaanaa waa hara loo xiro aniga hadda lay xiro lay saaraya cidi ogaa marka waxaan mar bay baxaan waa garta isaguna mar buu maxaa sababay marka ya maxaa sababay isla dee shacabkaasaan weydiinayna waxay sababaan waa loo jeedaa anigu kolley asaga unba waxaan xasuustaa hooyo baa maalin waxay ugu tiri siyaad waxaa la yidhi qofkii arka wuu sooxi jiray libax libax baa u sawiri jiray waa kow macnaha jahrad iyo macnaha ninka burji inuu lahaa bay ku muujinaysaa way janniya naxariis allah siiye intii amiin 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 isagana waa ducaynayna baa b b c da laga waraysto dee b b c dan ma aha waa b b c da hore yaa laga waraysta ridi baad baa ma laga waraysta ninka rida arbal u dhegeysa dee siyaad baa laga waraysta saas ridi maamaa baan uga dan leeyahay alla gabdhihii iyo riyii baa madaxa isaga kay geliseen inaan is soo celiyaan waxaa la afkaa ku xiray oo haddana aan kusoo furan alla kaa gooba alla kaa go waxaan rabaa in dee inaa isdifaacaan rabaa markii la waraystay waxaa waraysanaya nin liyaa cabdullaahi xaaji oo hadda weynaaday maxaa lagu diri jiray cabdullaahi xaaji cabdullaahi xaaji markuu waraystay buu wuxuu yidhi goormaa ciidamada ka saaraysaan magaalada dhexdeeda oo xiriye aad ku celinaysaan allow naxariisagii waa maxamed siyaad barraa wuxuu yidhi
jaalle gabar baa walaalkeed naaska taabtay markaas waxay tiri naaska walaalkay taabtay habba waa sidaan ka dhigtaa hadday xumaan ka dhigatana dee waa u xumaan walaalkeedoo gacanta meesha uga dhacda hadday dhoqotana dee waa u samaan habba siday militarigu waddanka u ka dhigto ay dadku ka dhigtaan marna hadday cadow u arkaan dee waa cadowgii hadday u arkaan ciidankoodii oo kala maslaxayo oo waddanka nabadii suganayana dee waa say ka dhigtaan habba waa say ka dhigtaan aniga gabadha maanta aan fartuun aad tiraahdeen anna aan rida ku sheegay habba walaasheeda gabdhahaygaa Soomaaliyeed habba say ka dhigtaan taami aan taadiiday hatta gabdhihii riba ridi u soo noqo sheekadii u soo noqo ha sheekada igu soo celi ninka dagaal buu wadaa ma wada qolu raaci ugu fure ma wada dagaal ma jiro anigu wala jeedo meel xashakilillah kulli halkaas na wada saarantii ka dhacay halkaas kadib subaxii dawaan lagu soo dhardhaari isagoo raba xiradii inuu ka rogto halkaan niman rasaas ka soo bilbilay asagii way ku dhigtay riixid kaxaysana lawaa isagina dhimay qayladhaan baa lagu keenoo la yiri ninkii hebel ahaa dee la diliyo meeshii baa lagu dilay ereygii uu berigii yirina asagii buu ku noqda oo meydkii uu berigii saadsanayay laakiin asaga colkaas inuu dilayo kuma darsan wuxuu shiri ama wiilashaa la dilayo meyd baad ag seexan ama arigo baa asagu marna meydkiisa kuma darsan marka la jecladaan tirada badan meel xun bay ku dhigtaa aad iyo ama xagga cadaabta ha ku geyso ama xaggan kale dee meel kaleba ha ku marna raaxa ku geyn mayso marka la jeclada badan tirada badan xogaa in laqo aad baad mahadsantihiin saaxiibayaal gidigii meegstaad joogtaan barnaamijkii qof iyo sheeko ayaa daawanaysaan halkaas inoogu joogaya maanta waxaa sheekeeyey cabdishukri iyo axmed ciro anigu moogtay waa daadihinayey qaybaha kale ama intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaanu khaldan raalli naga ahaada waxaanu saxnayn awooddeeda maahay waa xagga guuleey nabadgelyo